horumar, dhaqan, dhaqaale iyo taariikh ummadeed. Waxaa sal u ah waxbarasho laga soo bilaabo asaaskeedii bartamihii qarnigii tegay ilaa 1991 oo ay burburtay. Jaamacadda Ummadda Soomaaliyeed waxa ay lafdhabar u ahayd horumarradii baaxadda lahaa ee ay Soomaaliya ku tallaabsatay wakhtigaas. Waxa ay soo saartay jiilal kala duwan oo dalka iyo dadkaba wax badan taray. jaamacadda Ummadda Soomaaliyeed waxay ka mid tahay hay'adaha ugu qadiimsan ama ugu weyn hay'adka dowladnimada Soomaaliya. waxay soo bilaabatay xilligii gumaysigii soo bilaabatay ilaa maantana waa socotaan. laakiin nasiib darro 90kii ilaa iyo 2014 ayay ka maqnayd saaxada jaamacaddu ka maqnayd sababihii dagaalka sokeeye oo kalifay ama dhibaatooyinka dagaalka sokeeye oo kalifay ayay ka mid ahayd. guud ahaan intii ka horreysay burburka jaamacaddu waxay soo saari jirtay kaadir aqoon u leh waxa ay qabanayaan, hadday noqon lahayd farsamo, hadday noqon lahayd aqoon kale. yacni jaamacaddu waxay udub dhaxaad u ahayd helitaanka kaadir xirfadaysan inay soo saarto. marka jaamacadda ummaddu kaalinta ay ku lahayd horumarka dalka wuxuu ahaa mid aad u muuqdo ahaa. nasiib darro laakiin 1990kii waxaa ka baxday meeshaas kaalintaas wax ku oolka ah ee jaamacaddu ay lahayd. kadib 23 sano oo ay maqnayd kaalinteedii toosinta iyo tusaaleynta bulshada, 2014 ayay dowladda Soomaaliya dib u aasaastay jaamacadda kadib dadaallo ay hormuud u ahaayeen aqoon-yahanadii horey uga aflaxay. marka jaamacadda ummadda waxay soo saartay dadka ugu sarsareeya hoggaanka waddankan soo qabtay ilaa haddana siday ku howlantahay. waxa ay ahayd wax ka badan dib u dhiska dhismayaasha. waxa ay ahayd riyo run isu beddeshay. jaamacadda Ummadda Soomaaliyeed Professor Jimcaale nin la yiraahdo hadda weli inuu joogo aan qiyaasahay jaamacadda ayaa maalmaha ka mid ah yimiday. wuxuu ii sheegay dadaal dheer oo ay ku soo jireen asiga iyo rag kale oo macallimiinta jaamacadda Ummadda Soomaaliyeed ah oo shirar badan Toronto ku yeeshay, London ku yeeshay, Roma Italia ku yeeshay, meelo badan ku yeeshay sidii jaamacadda loo soo nooray lahaa. laakiin ay xaqiiqada ahayd haddaanay jaamacadda dowlad aanay helin. jaamacadda Ummadda Soomaaliyeed waa public university. dowlad haddaanay helin garab taagan oo kaabayso inaanay dib u soo noolaanin. profesorka dadaal badan uu sameeyey, anigana waa ku garab istaagay. waxaan dhahay hore u soco, maxaa u baahan tahay? guddigaan la sameeyey, jaamacadda xeerkeedaan dib ula abaabulnay, waa la xeerkeedaan la samaynay, jaamacaddii dib u furnay. waxaan u bilownay waxyaabihii yaryaraa qarashka beyska yaryarka u baahnaay. jaamacaddii saasaan u bilownay. waan xasuustaa 2 qol oo guriga hooyooyinka 2 qol oo muxuu ahaaya meeshaas ka qalqaalsanay ururka hooyooyinka inay 2 qol naga siiyaan 2 qol ay na siiyaan. 2daa qol waxaan deganana filayaa adigu 6 bilood 7 bilood waxay tahay intan aan muxuu nalooga diyaarinayay xarunta oo dhismo ku socday Shabeelle. marka halkaas ayaanu ka bilownay. guruubadii afraad ayaan aniga ahaa oo ka qalinjebisay jaamacadda. haddana iyadii aan macallinka ah. haddaan baxay oo dibadda aaday oo soo wareegay oo aan jaamacado kale ka soo shaqeeyey. markii dambe maalin anigoo maraya Wembley ayaa professorkii jaamacadda ii yimid beeroon jaamacadda ummadda waa akhbaar ka fiican oo ay sheegayeen maaha. wartaan jaarad tigid soo goos horan ka soo baxay tan. waxa uu ahaa bilow ay ku xeeran yihiin daruufo badan oo isbiirsaday, kuwaasi oo xadiday arday qaadashada jaamacadda. sanadkii koowaad in ka yar 400 oo dhalinyaro Soomaaliyeed ah ayaa helay waxbarasho jaamacadeed oo bilaash ah, iyadoo sanadba sanadka ka dambeeya ay sii kordhaysay ardayda ay qaadanayso jaamacadda. waxaan ku bilownay 6 kulliyadood. 6daas kulliyadood oo kala ahaa kulliyadda caafimaadka, kulliyadda xanaanada xoolaha, kulliyadda beeraha, kulliyadda waxbarashada, kulliyadda dhaqaalaha iyo kulliyadda sharciga.
lixdaas kulliyadood baan ku bilownay ardadii ugu horreeyay oo qaadanay waxay ahayd 374 arday hal xarun oo keliya ayaa markaa gacantanada ku jirtay xarunta Shabeelle ayaan 6 kulliyadoodba ku bilownay kabacdi alxamdulillaah 6 kulliyadood ardadoodii qalin jabintii ugu horeysay 2019 ayay sameeyeen maanta jaamacadda ummadda Soomaaliyeed waxa ay ku tallaabsatay horumaro lixaad leh waxa ay leedahay 12 kulliyadood oo heerka koobaad ah iyo kulliyadda takhasuska sare iyadoo ay wax ka bartaan dhowr iyo 10,000 oo arday Soomaaliyeed ah maanta waxay maraysaa jaamacaddu inay dhigtaan 13,000 oo arday inay dhigtaan dufcaddii tobnaadna ay marayso taas macnaheedu waxa waaye jaamacaddu waxay soo saartay aad dad u badan ayay soo saartay laakiin meesha ay ka ahaayeen 6 kulliyadood hadda waxay noqdeen 12 kulliyadood iyo kulliyad kale oo loogu talagalay daraasaadka takhasusaadka ah loogu talagalay jaamacadda ummaddu ardayda ay qaadato waxa ay siisaa waxbarasho bilaash ah oo leh tayada tan heerka adduunka taasoo lagu cabiray halbeegyo caalami ah iyada oo bixiso barnaamijyo soo afjaraya farqiga u dhaxeeya tijaabada iyo aragtida si ardaygu uu wax u barto oo shaqadiisa inuu ahayn galaas buu galay galaas buu ka soo baxay macallin baa ka soo baxay waxa garab socda si ardaygu xirfadiisu noqoto laababkii arday wax lagu bari lahaa sida laabka injineeriyada laabka sayniska laabka kulliyadda waxbarashada qaybta sayniska iyo laababka ayagana kombiyuutarada wax lagu baran lahaa ayagan intaas waa jiraan waxaa sii dheer ayadana maktabadii librarygii barnaamijyada waxbarasho ee ay bixiso jaamacadda ummadda Soomaaliyeed waxaa diiradda lagu saaraa sidii ardaygu qayb uga qaadan lahaa xal u helidda caqabadaha bulshada ka haysta dhinacyada kala duwan ee nolosha iyo sidii ay u horumarin lahaayeen wax soo saarka dalka waxaan rabnaa inaan ku dhawaaqno mustaqbalka dhow wax la yiraahdo kacaanka cagaaran green revolution waxa la yiraahdo oo la dagaalanka gaajada iyo maaragtay faqriga waxaan kale oo u sameynaa ardada tababaro kala duwan oo majaaladaas kala duwan ama garsoorka ha noqoto ama cilmi baarista ha noqoto ama faafinta diinta iyo dacwada ha noqoto jaamacaddu waxay ku tallaabsatay muddadaas gaaban ee 10 sano ah horumar dhinac walba leh ayay ku tallaabsatay waxay xaqiijisay kaalinteedii ay ku lahayd waxbarista bulshada Soomaaliyeed waxa ay dib u dhistay 7 baloog oo ka mid ah dhismayaasha waxbarashada ee xaruntii hore ee Gahiir 3 dhismo oo xarunta sayniska iyo tiknoolajiyadda ee Kilometer 4 iyo dhammaan dhismayaasha xarunta Shabeelle kuwaasi oo loo dhameystiray dhammaan tasjiilaadkii waxbarashada sida fasallada shaybaarada laababka iyo maktabadaha waxa ay markii ugu horeysay taariikhda gaartay gobollo aanay hore u gaarin iyadoo oo xarun ku yeelatay Caabuduwaaq Galmudug iyo Badhan oo Puntland ah waxa ay ballaarisay xiriirkeeda caalamiga ah iyo iskaashiga cilmi baarista si loo gaaro isbeddello bulsheed oo cilmiyeysan guulaha ballaaran ee ay gaartay jaamacadda ummadda Soomaaliyeed waxa ay marag u tahay ruuxda aan la jebin karin ee ummadda Soomaaliyeed taas oo cadaynaysa xitaa waqtiyada madow waxbarashadu waxay ahaanaysaa iftiin hagaya mustaqbal ifaya sida urta loo raro heesa u gaarka waxa lagu aloosaa magaceebahe iyo adin iyo afwada jira